dawlayaasha qiimaha badan maanta waxaan isbarbardhig ku samayn doonaa ciidamada labada dal ee Soomaaliya iyo Somaliland. Waddan kasta waxaa lagu tixgeliyaa oo lagaga cabsadaa kolba inta ay leegtahay awoodda ciidankiisa iyo dhaqaalihiisa, waana sababta dalka Mareykanka adduunka ku maamulo awood military iyadoo miisaaniyad badan uu geliyo militariga dalkiisa oo ah kan adduunka ugu awoodda badan. Haddaba maanta waxaynu isbarbardhig ku sameynaynaa ciidamada labada dal ee Soomaaliya iyo Somaliland. Aynu ku horreyno Jamhuuriyadda Somaliland. Jamhuuriyadda Somaliland shacabkeeda waxaa lagu qiyaasaa 6 milyan. ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Somaliland waxaa la aasaasay 1994 oo markaa tiro yar lagu bilaabay, maantana ciidda ay ka badan yihiin. waxay hoos imaadaan oo maamula marka laga yimaado madaxweynaha Somaliland, taliyaha ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland Nuux Ismaaciil Taani oo ah ninka ugu sarreeya ee ciidanka qaranka maamula. ciidamada Jamhuuriyadda Somaliland guud ahaan waxay u kala baxaan kow ciidanka qaranka difaaca amniga dalka dibadiisa qaabilsan iyo kuwa gudaha sida ciidanka booliska iyo ciidanka immigrationka iyo ciidanka asluubta iyo kuwa sirdoonka, waxaana ku baxa dhaqaale ah 300 milyan oo dollarka Mareykanka ah. tira ahaan ciidanka Jamhuuriyadda Somaliland inta howlgasha waxaa lagu qiyaasaa 100,000 oo askari oo heegan ah, halka inta kaydka ahna lagu qiyaasay 500,000 oo askari oo marka loo baahdo diyaar u ah inay howlgalaan. ahaan waxay u dhaxeeyaan 18 jir ilaa 40 jir. khibrad ahaan iyo tababar ahaan waxaa ku jira rag ka tirsanaa ururkii dhaqdhaqaaqa SNM ee dowladda Soomaaliya ee Libaaxa Afrika loo yaqaanay ee Siyaad Barre hogaaminayay afka dhulka u geliyay, iyo kuwa ku soo qaatay waxbarasho gudaha Jamhuuriyadda Somaliland sida kuliyadda Cabdilaahi Askar, kuliyadda Sheekh iyo kuliyadda Bixin, iyo waliba dalka dibadiisa sida dalka Itoobiya, dalka Ingiriiska iyo waliba dalka Belgiumka. taliska guud ee ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland wuxuu ku yaalaa caasimadda Hargeysa. daawadayal waxaan ka cudur daaranaynaa inaanan idiin soo gudbin karin qalabka iyo saanada ay ku dagaalamaan ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland maadaama ay tahay sir ciidan oo aan habboonayn in dibadda loo saaro. sida taariikhda lagu hayo ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland lama sheegin dagaal ay galeen oo laga guuleystay ama lagu jabiyay. ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland waxaa lagu tiriyaa ciidamada dalalka qaaradda Afrika kuwooda ugu awoodda badan, iyaga oo waliba dal aan aqoonsi ka haysan caalamka intiisa kale. ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland marka la eego dhaqaalaha ku baxa qaab dhismeedkooda sida ay u sugeen amniga shacabka dalkooda oo muddo ku dhow rubuc qarni aan arag colaad iyo amni xumo. markii arrimahaas oo dhan la qiimeeyay iyo waliba wax badan oo idinka qarsoon ayaa ay noqdeen ciidamada Afrika kuwooda ugu khatarta badan. ودنا مدحوينه وعسلاتها لو دياره حطوا كتف ملكة جمهورية الصومال ودنا مدحوينه كسنة dalka Soomaaliya wuxuu kaalinta 160aad uu kaga jiraa liiska lagu qiimeeyo awoodaha military ee dalalka adduunka oo ka kooban 130 dal oo ay noqonayso in laba dal oo kaliya ay caalamka ka hooseeyaan dalka Soomaaliya sida ku xusan warbixinta uu ka diyaariyay wargeyska Global Firepower. tirada shacabka dalka Soomaaliya tiro koob ahaan waa 9 milyan. tirada ciidanka militariga Soomaaliya ee hadda shaqeeya waxaa lagu qiyaasay 10,000 oo askari sida lagu xusay warbixintan wargeyska Global Firepower. ma jiro ciidan kayd oo ah militariga dalka Soomaaliya. dhaqaalaha ku baxa dhinaca ciidanka militariga dalka Soomaaliya iyo miisaaniyadda loo qoondeeyo howlaha gaashaandhigga ama difaaca ee dalka Soomaaliya ayaa lagu qiyaasay ama lagu sheegay in ay tahay 20 milyan oo dollarka Mareykanka ah. ciidamada Soomaaliya waxay u kala baxaan laba qaybood oo la kala yiraahdo Danab iyo Haramcad. ciidanka Haramcad oo ka tirsan booliska dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la aasaasay markii uu xukunka qabtay madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo, waana ciidan si gaar ah loogu tababaray ka hortagga rabshadaha iyo dagaalada ka hor dhaca magaalooyinka. ciidankan oo tiro ahaan lagu qiyaasay 1,000 askari ayaa waxaa tababaray dalka Turkiga oo gudaha dalkiisa u qaada, halka qaarna uu tababarka ay ku qaataan xirada Turkisom ee ku dhex taala magaalada Muqdisho. inta badan hubka ay wataan ayaa ah mid fudud, waxaana ay u carbisan yihiin shiishka iyo howlgallada qorshaysan iyo ka hortagga mudaharaadyada. dareyska tuutaha ay wataan askarta Haramcad ayaa ah mid ka duwan ciidamada kale ee booliska dalka Soomaaliya, waxaana intooda badan ay horey uga tirsanaayeen ciidanka nabad sugidda ee NISA sida uu sheegay Cabdisalaam Guuleed, taliye ku-xigeenkii hore ee NISA. ciidanka labaad ee dalka Soomaaliya leeyahay ayaa la yiraahdaa Danab. ciidanka Danab oo tiro ahaan lagu qiyaasay 8,000 oo askari waxaa saldhigga Beledoogle ku tababara ciidamada Mareykanka ee ku sugan goobtaas kana tirsan taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika. sidoo kale saraakiisha ciidamada Danab gaar ahaan kuwa hogaamiya dagaalka ayaa lagu soo tababaraa dalal dibadda ah
halkaas oo ay ku soo qaataan tababaro dheeraad ah oo lagu xiriira hogaaminta ciidanka iyo xilliyada dagaalka. saanada ciidan ee ay ku dagaalamaan ciidamada Soomaaliya guud ahaan ayaa kala ah 10 taangi, 10 gawaarida gaashaaman ah, 5 mid oo madaafiicda rajiida ah, 7 qalabka lagu rakibo gantaalada, 100 gaari oo nooca loo yaqaan cabdibilaha. balse guud ahaan ciidanka dalka Soomaaliya ayaa ku fashilmay sugidda amniga dalka Soomaaliya muddo ku dhow 30 sanadood oo ay amniga dalkaasi gacanta ku hayaan ciidamada la isku yiraahdo AMISOM